السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مال بعد شوكتان أرديدي إذا شرفت يقيمها إيقايها بدن سود هذا 10 كنا ما تحول عيا سيدة pronouns مقعيالو I, we, you, they, he, she, it oo macnahooduna uu yahay sidatan I aniga, we annaga, you adiga amba idinka dad badan oo jamac ah markaas hadii ay yihiin they iyaga waa dad badan laakiin iyaga oo ka maqan he isaga she iyada it oo u taagan xayawaan amba shay manoola ah haddaba aanu ku celino mar kale pronouns waa magacyalo I oo u taagan aniga we oo u taagan annaga you oo u taagan adiga amba idinka they oo u taagan iyaga he oo u taagan isaga she oo u taagan iyada it oo u taagan xayawaan amba manoole halkii aan qofka magaciisa ka sheegi lahayn aan dhihi lahayn hebel amba heblaayo ali amba caasho waxaad leedahay he isaga she iyada waa magacyaal walibana wuxuu matalayaa magacani erayadan ay matalayaan qofka shakhsigiisa waxa uu yahay iyada amba isaga adigoonan sheegaynin magaciisa amba soo sheegtay hal mar magaciisa okay haddaba sii share garay casharkan gaarsii walaalaha amba ardayda jecel inay bartaan luqadda Ingiriiska waa cashar taxana oo socon doona adigana waxaan ku rajeynayaa guul iyo gobonimo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. casharkeena maanta wuxuu ku saabsanaa magacyaal haddaba exercise-ka isku day inaad ka shaqeyso walibana xagga hoose ee commentiga aad ku soo qorto wixii aad ka fahantay casharka iyo wixii dhiirigelin